munaasabadan ayaa mid ay ku qalin jabinayeen in ka badan 60 arday oo baratay culumta computer science-ka isla markaasina loo qabtay ardayda wax ka barata xarunta Woodward ee College-ka Sahal Software. Dufcadan maanta ka qalin jabisay college-kan ayaa dufcadii labaad ee ka qalin rogatay xarunta College-ka Sahal Software ee magaalada Woodward. waxaana munaasabadaasi kala soo qayb galay ardaydaasi maanta qalin jabinaysay maamulka sare ee College-ka Sahal Software, Engineer Maxamed Jaamac Sahal, saraakiil ka tirsan College-ka Sahal Software ee xaruntiisa magaalada Laascaanood, waalidiin odayaal shacab aad u tiro badan sanayay farxadda ardaydaasi. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay madaxweynaha College-ka Sahal Software, Engineer Maxamed Jaamac Sahal, isagoo sheegay inay ka gudbi doonaan reer Woodward College-ka isla markaasina ay ka furi doonaan jaamacadda Sahal Software oo dhawaan uu gudoomiyuhu kaga dhawaaqay magaalada Laascaanood, isla markaasina ka shaqeysa magaalooyinka Laascaanood, Boosaaso iyo Hargeysa. kelmadaasi uu ka dhawaajiyay gudoomiyuhu ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay odayaashii waxgaradka ee shacabka xafladaasi ka soo qayb galay, iyagoo ay sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha jaamacaddaasi iyo sidoo kale dhulkaasi laga dhisi doono jaamacadda. maanta inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan leh ardayda sharafta leh ee qalin jabinaysa ee Sahal Software College magaalada Woodward hambalyo iyo bogaadin la wadaagaya ardaydan quruxda badan ee qalin jabinaysa ayaan la wadaagayaa farxadda maalinka maanta iyagoo ka qalin jabinaya dufcadii labaad isla markaana qaadanaya shahaadada labaad ee dibloomada. farxad weyn bay markaa noo tahay inaan dhiirigelino oo aanu garab istaagno ardaydayada. tiimamka Sahal Software waxay ku guuleysteen inay ku soo kordhiyaan adduunka software-ro, inay barnaamijyo database soo kordhiyaan bay guuleysteen. Sahal Software midhihii waad aragtaan aan soo saarnay. waxaan martii ka nahdanahay Sahal Software team qaybta college-ka qaybta jaamacadda reer Woodward waa maanta waa wada joognaay inaad ku deeqdaan dhulkii jaamacadda Sahal Software looga dhisi lahaa magaalada, inaydan u kala kicin oo aad ku deeqdaan qof walba wuxuu awoodo dhismihiinu ka qayb qaato. haddaynu bilowno waa khasab way dhismaysaa. waxaan kaloo halkan ugu hambaliyeynayaa oo aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa ardayda maanta qalin jabinaysa, waan doonayaa inaan aad iyo aad ugu hambaliyeeyo. haddaan xogta College-ka bartana ka bixiyo, maanta waxaa qalin jabinaya arday oo dhigta ama kamid ah ardayda Sahal Software. 41 arday waxay isku jiraan laba qaybood. qayb waxay ka qalin jabinaysaa dibloma qaadanaysaa, shahaado dibloma la siinayo. qaybna waxay qaadanaysaa basic. jaamacadda maanta lagu dhawaaqay in laga furo magaalada Woodward wallahi farxad weyn bay tahay. mana aanan filanin inuu Maxamed Jaamac maanta ku dhawaaqo jaamacad magaalada Woodward ha laga furo ama ha loogu horeysiiyo. waxay noqotay farxad aan qaadi karayn. anigu haddaanu nahay Jidaal Foundation ama anigu aan afka Jidaal Foundation ku hadlayo qayb laxaad leeyaan ka qaadanayna. waxaad qaateen aqoon baad qaateen, aqoon aad iyo aad u qaali baad qaateen. waxaa loo baahan yahay inay halkan ka sii wadaan oo ay naga codsadeen in aynu jaamacad dhul iyo dhaqaale u bixino. waxaan ballan qaadnaa engineer insha Allah tacaala haddii Ilaahay qadaro inaanu dhulkiina raadino, ismiisana aanu ka qayb qaadano. macalinka arrintan uu inagu dhawaaqay ee ah in aad jaamacadda jaaniska aad qaadatiin iyo inala weynaan. aniga Ilaahay oo arka magaaladaydii iyo dadkaygii waxaan inagu deeqayaa, laakiin waxaan inagu deeqayaa inaan $500 ku darsado. waxaan u mahad celinayaa kooxda ka socota Sahal Software iyo Jidaal Foundation, kuwaas oo ah kuwa noo suurtageliyay inaanu darajadan ka gaadhno oo aanu qaadano dibloma. waxaan u hambaliyeynayaa ardayda maanta fadhida ee ka qalin jabinaysa qayb qaadanaysa diblomka, qaybna qaadanaysa basic computer-ka baan aad ugu hambaliyeynayaa. tacliintii u sareysay Sahal Software weeye, cilmi weeye, IT software-ka adduunka Sahal baa u sareysa. suuradeeda waxaan iyo injineera u sareeya, injineer daacado Maxamed Sahal u horeeyo. waxaan ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaankaasi la gudoonsiiyay abaalmarino iyo shahaadooyin, waxaana qayb weyn ka qaatay hay'adda khayriga ee Jidaal Foundation. waa Maxamuud Aadan Askar, Maxamuud Gurey, TV-ga caalamiga ee Somali News, magaalada Woodward.